madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qorqor oo safar ku toga deegaanka qeexad oo qeyb ka ah deegaana hoos yimaada magaalada bacadweyne ee koonfurta gobolka mudug ayaa kormeer ku tagay fariisina ciidamada ammaanka dowladda federaalk kuwa daraawiishta galmudug ay ku leeyihiin duleedka deegaankaasi iyo magaalada bacadweyne gudaheeda iyo deegaano kale oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qorqor ayaa midmid u dul istaagay fariisinaha ciidamada ammaanka iyo kuwa galmudug ay ku leeyihiin deegaankaasi kuwaas oo dagaal xoogan kula galay maalmo ka hor dagaalamayaasha al-shabaab oo ku sugnaa deegaano badan oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug islamarkaasna fariisin ku lahaa madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qorqor ayaa saraakiisha ciidamada ammaanka dowladda federaalk ee kuwa daraawiishta galmudug ku bogaadiyey howlgallada shabaab laga xoreynaya koonfurta gobolka mudug waxaana saraakiisha madaxweynuhu la wadaagay inay muhiim tahay in koonfurta gobolka mudug laga xoreeyo dagaalamayaasha al-shabaab inta aan la gudagelin doorashada xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya axmed cabdi kaariyo qorqor madaxweynaha maamulka galmudug ayaa safarkan waxa uu ahaa mid uu ku wehlinaya saraakiil ka mid ah ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka waxaana ujeedkiisu ahaa sida kormeerid ay ugu samayn lahaayeen goobaha al-shabaab laga saaray ee ka tirsan koonfurta gobolka mudug islamarkaasna ay ku sugan yihiin ciidamada ammaanka dowladda federaalka in ka badan 2 toddobaad ayay ciidamada hoganta ee isugu jira kuwa dowladda federaalka daraawiishta iyo ciidamo u watay taliyihii hore qaybta booliiska gobolka banaadir saadiq cumar xasan saadiq joon qaybna uu ka ahaa senatar cabdi xasan cawaale qaybdiid waxa ay ku sugan yihiin deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug waxaana al-shabaab ay ka saareen ilaa 10 deegaan oo ka tirsan gobolka howlgalkan ayaa toddobaadka labaad ka socda deegaano badan oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug waxaana meelaha qaarkood oo ka dhaca dagaal khasaare kala duwan dhaliyey xasan axmed maxamed hirshabelle TV galmudug